aanu ka hadalnaa ciyaarta koobka kubadda cagta ee adduunka ee ka furmi doono maalinta beriya maalinta axadda waddanka qatar 195 waddan ee caalamka jirto 32 koox ayaa u tartami doonta koobkan 31 waddan ayaa ka qayb galayso maadaama ingiriiska iyo wales adduunka u aqoonsan yihiin hal waddan 64 ciyaar ayay ciyaari doonaan maalinta ugu dambeysa finalka waa December 18 2022 laakiin su-aasha $1 million waxay tahay yaa ku guuleysan doona $44 milyan kooxdee qaadi doonto wadankee hanan doono koobkan markii 20 iyo 20aad ee la dhigo arto salaamantiin meel walba joogtaan waa maxamed faarax social media daaqarta videogan of course la wadaag dhamaan asxaabtaada fikirkaagana ka dhiibo waxaa la gaaray xilligii World Cup-ka bishii caalamku idil ee TV-yaasha iyo raadiyaasha daawanayeen lagana faaloonayay kubadda cagta ka bilaaban doonta waddanka qatar maalinta bariya kowda waddan ama labada waddan ee ka qayb galayso ayaa 5 waddan waxay ka timid qaaradda Afrika 13 waddan waxay ka imaadeen wadamada Europe Asia waxaa ka timid 5 waddan Latin North iyo Central America 8 waddan Oceania qaaradda shanaadna waxaa ka timid 1 waddan shanta qaarad waa ku dhan yihiin laakiin alaaba koobka adduunka mar walba waxaa qaado 2 qaarad oo kaliya waa qaaradda Europe iyo sidoo kale qaaradda Latin North iyo Central America 5 waddan oo Europeana ayaa qaaday iyo 3 waddan oo wadamada Latin America ah 8 waddan oo kaliya ayaa qaada koobkan 21 mar ayaa la dhigay hadda ka hor 21 World Cup mar walbana 4 sano ayaa u dhaxayso inkastoo xilligii dagaalkii labaad adduunka oo muddo dheer istaagsanaaday 20 waddan waxaa lagu dhigay wadamada Kristiyaanka ah hal mar waxaa lagu dhigay 2 waddan oo Buddhist ah waa 2002 waa Japan iyo South Korea markaan waa markii 22 waxaa lagu dhigay waddan Muslim ah oo Middle East ku yaalo markii labaad oo Asia lagu dhigayo waaye waana record ah wadankii ugu horeysa Muslim inay noqoto wadanka qatar uu martigeliyo koobkan qatar markii ay ku inay martigeliso koobkan ku guuleyso 2010 maysan haysan koox ciyaartooy ah weligeed World Cup kama qayb gelin koobka Asia ay ciyaari jirtay garoomo weyn oo casri ma haysan hoteelo aerobooro wax dhamaysan muddo 12 sano ayay waxay ku dhistay garoomo casri ah garoomo waaweyn wadooyin casri ah aerobooro hoteelo muqaaxiyo waaweyn meelaha dadka imaadaan ku shaaxiyaan ka fikrayaan wadankii dhan ay horumarisay sida waqtigan qatar waa 313 population wise waana wadankii ugu yaraa abid oo yar oo martigeliya koobkan laakiin qatar waa wadan taajir ah waxay ku qarash garaysaa koobkan 229 bilyan oo dollar waa koobkii ugu qaalisanaa abid oo ka baxa wadan inta lacag inta leega maadaama waxaas dhan ay haysan all those infrastructure ka haysanin 12 sano ay ku dhisteen waxaas oo dhan 229 bilyan dollar ku baxday waxay ka heli doontaa koobkan intuu bishu socdo 7 bilyan oo dollar kaliya waxay qasaaraysaa qatar 212 bilyan oo dollar 212 bilyan oo dollar ay qasaarayaan qatar koobkan kaliya waxay u gashay inay ku faanto prestige inay magac ku hesho kaliya waayo qatar lacag ay haysataa waa wadan yar oo qani ah shidaal gas iyo oil haysto lacag bilaa xad dhaaf haysto taas daraadeed waxaas 229 bilyan dollar ku kacday waxay u arkaan tish ama napkin ayay u arkaan 8 bilyan oo qof ayaa caalamka ku nool 5 bilyan oo qof waxay daawan doontaan World Cup-kan bisha uu socdo dhamaan waa markii ugu badad abid tire ee bani'aadana ee daawadaan koobkan dadka badan waxay ka daawan doonaan leeyahay TV-yaasha iyo raadiyaasha wadamo badan ayaa qatar dhaleeceeyay oo ku dhaleeceeyay human rights violation sida wadamada reer galbeedka waxay sheegeen qatar in labor law ku xun yihiin dadkii garoomadan iyo intaan waxaan World Cup-kan dhisay waxay dhaheen waa Bangladesh Sri Lanka Nepal Hindi Pakistan wadamo badan oo Afrikaan Kenya dadkaas si xun ayaa loola tacaali jiray xuquuqdooda cunto lama siin jirin saacada xataa garoomada dhisi jireen sidoo kale wadamada reer galbeedka waxay ku eedanayaan qatar in human rights violation aad u xadaf ku subiyeen dadka qaniisiinta ah lama ogola wadanka qatar
qaniisnimo qofkii lagu arko waa la xiriyaa ama waa la dilayaa calanka qaniisiinta prayer flag lama ogolo wadamada reer galbeedka maalmaha miidiyaha ah waxaa laga dabwaday qadar inay ku xun tahay human rights violation xagga shaqaalaha iyo qaniisiinta qadar waxay tiri xagga shaqaalaha waxa waan ka qabanayaa oo waa improve gareynaya conditionkooda waana ixtiraamaya laakiin qaniisnimo wadankayga uma ogoli mana yeelayo inuu buudhan goreeyo waxay kaloo ay ganaaxeen maanta in qamrada lagu cabo garoonka xilliga ciyaarta socoto way lama cabi karo qamro lagu cabi karo taageerayaasha ma cabi karo laakiin baararka iyo hoteeladooda aadi karaan iyo meel loogu talagalo vanzonska way ku cabi karaan labaatan iyo lixda waa 2026 World Cup kan ku xiga waxaa lagu dhigi doonaa North America Mareykanka Canada iyo Mexico 48 wadan ayaa ka qayb gali doonto 80 ciyaar ayaa la ciyaari doonaa koobkan qadar lagu dhigi doono oo markii la tilmaantanaada ayaa ugu dambayso 32 koox lagu qabto wala si balaarin doonaa 48 koox ayaa laga dhigi doonaa wadamo badanna way ka soo qayb gali doonaan qaaradda Africa of course waa loo barin doonaa waxaan rajaynayaa markaas insha Allah Soomaaliya ka soo qayb gasho 2026 maadaama hadda ka soo qayb markaasna anagu aan reeno laakiin ka hor inta Soomaaliya aan la jirin ama ay sareen 26 yaa qaadi doona koobkan yaa ku guuleysan doona 44 milyan dollar aniga adiga tiim ayaan taageernaa koox ayaan kala taageernaa aniga fikirkayga hadaan ka hadlo waxaan aaminsanahay in Faransa mar kale qaadi doonto koobkan Mbappe iyo Benzema iyo dhammaan Faransiyaashooda ah oo hadda ka hor 2018kii Russia ku qaaday inay mar kale tookadan qaadi doonaan ha saas ayaan isleeyahay waxaan kaloo sidoo kale taageeri doonaa Mareykanka maadaama aan joogo Mareykan waxaan isleeyahay Mareykanna taageer labada koox aan taageeri doono koobkan waa Faransiiska oo qaadi doona iyo Mareykan oo meel fiican soo gaari doona balse adiga walaal yee kula tahay yaa qaadi doona koobkan khubarada bununta waxay leeyihiin waxaa qaadi doono 4 ilaa 5 wadan ay saadaaliyeen midkood Brazil France Belgium Argentina Germany inta qaadi doonta leeyihiin ma waxaa qaadi doono the usual suspect sideedii wadan hadda ka hor qaaday mise waxaa qaadi doono wadamo cusub fikirkaaga ka dhiibo tiimkee taageertaa kooxdee qaadi doonto wadankee qaadi doono lamaana wadaag videogan dhammaan asxaabtaada maxamed faarax salaamatiin